madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey shirka tallaalka dunida oo qaab fogaan arag ah uu kaga qayb galay shirkan oo ay martigelisay dowladda ingiriiska waxaa hogaaminayey ra-iisul wasaaraha dalkaasi boris johnson. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxu uu sheegay in ay sharaf weyn u tahay ka qaybgalka shirkaasi oo diradda lagu saarayay caafimaadka iyo badqabka. waxa uu sheegay maxamed cabdulaahi farmaajo in shirka uu ahaa iskaashi ammaan mudan islamarkaana u dhexeeyey isbahaysi dowlado ah, hay-ado caalami iyo shirkado dowladeed iyo kuwa gaar loo leeyahay si ay u soo saaraan tallaal looga hortegayo cudurrada keena dhimashada degdeg ah. Soomaaliya waxa ay ku faraxsan tahay in ay qayb ka tahay isbahaysiga talaalka si loo helo bulsho siman oo badqabta iyo horumar waara oo ay helaan kuweena ugu nugul adduunka isla markaana u baahan caafimaad wanaagsan. ka hortagga ayaa mar walba ka wanaagsan daaweynta, halka in la helo talaal ka dhanka ah cudurrada laga hortagi karo iyo xoojinta caafimaadka muwaadiniinta meel walba ay joogaan ay tahay xaquuq aasaasi ah. madaxweyne farmaajo waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in la helo xilligan sidii loo heli lahaa caafimaad dhammaystiran oo bulshada Soomaaliyeed ay si siman u helaan. sidoo kale warbixinta uu jeediyey maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa ka mid ahaa in cudurka safmaraynka ah ee caalamka gilgilay ee coronavirus uu bulshada Soomaaliyeed iyo kuwa caalamka jooga uu baray in muhiimad gaara ay leedahay diyaargarowga, wada shaqaynta iyo in ficil midaysan laga qaato in muwaadiniinta Soomaaliyeed mustaqbalkooda la badbaadiyo. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho.